السلام عليكم دمان غير سومال مeel kasto joogtiin kusoo dhawaada janalka daawanaysa waa Nuruddin official xaqiiqooyinka dhabta soo bandhigo baliis hadaan ugu cusubtaa subscribe like share waa noo muhiim caawan waxa ka hadli doonaa dhagar qaybayaal ku kufsada boosaaso gabar Soomaaliyeed nala daawan qiraal aan nahay oo dambigeena aan qaranayno gabadhii anagoo doro laba waa u tagnay gabadha waa u gacan dhaafnay saas ay tahay gabadhii hadan waxaan ku sameynay inay iyadana baxrayso ama ay xirto ama na dacweyso بانديدانه هسا هذا جبده واعجني waxaan ku ceejina camaamad labada dhinac aan ka qabanay adaan ka qabanay gabadha way socday markuu hore markay socdo cabaar ka bacdo way soo kacday hadii soo kacday gabadhii waa soo baxnay cabaar anagoo joogno waan soo degnaanay wiilkii waa tashanay waxaan ku yiri walaalo ay gabadhii marxuumadan gabadhan hadhow haday tagto ama magaalada tagto weyn dacweynaysa ama xiraysa maxaa tala gabadha wax naf lagu ma jirto si loo aqoonsan gaariga taayirka lugtu ku aadiye mari anaga gabadhan aan ka tagno sidoo sheegay wuxuu yiri gabadhayna na baxarayso ambana dacweyso ayaa diidaneen saas darteeda u dilnay waa muuqaal muruga leh ka socmesh nin gabadha haday dhimatay saaxiib uga dhimatay Allah raxmatay inuu naga kaxay ma gaariga taayir buu yiri waayo gabadhii taayirkii anagoo indhaha noo dansan oo haddana gaari wax leer aan shidnin gabadhii taayirkii hora iyo tan dambe israacay Allah u naxariisto markaas ku soo galay jeesti gabadhii labada gacmo gadaal inuu saa aaga xiray labada gacan ayuu ceej dhab ku siiyay markuu ceej dhab ku siiyay banaanka istaagnaa wuxuu ugu dhahay gabadh waa dhimatay ee xagee geena waxaan ku dhahay meesha geenays geeyon ku dhahay haday dhan waa ku celinay hadal waa maqdu weeday markaas uu ugu dhahay waa soo baxnay markaan soo baxnay gabadh wuxuu dhigay nuur salaad meel u dhow fadhiyay gabadh meeshaas uu dhigay hore uu dhigay markuu hore dhigay gaariga gadaal buu soo qaaday gabadhu gaariga ku aadiyay oo si saar waa ka sii tagay taayirka gaariga maray oo madaxu kaga istaagay dhinaca madaxu ku aadistay taayirka madaxu kaga istaagay waana ka sii dhaqaajiyay gaariga Puntland aad u hambaleynayo dhagar qabayaashii gacanta ku dhigtay ka sheeg dhibaatada ku sameeyeen gabadhii Soomaaliyeed dhibaatada wala dhaqmeen sidii ku dileen sidii calaashan uga tuureen hay buurta iyo sidii calaashan taayirka u marsiiyeen dhamaan waa dhacdo aad iyo aad u murugo badan oo aniga qalbigayga taabatay taayirka baabuurka labada dambe labada hore la marsiiyo sidoo noo sheegay waa la ceejiyay kadibna taayira la mariyay bal noo wada qisadii waatan waa noo sii socotaa markaas ku soo galay jeesti gabadhii labada gacmo gadaal inuu saa aaga xiray labada gacan ayuu ceej dhab ku siiyay markuu ceej dhab ku siiyay banaanka istaagnaa wuxuu ugu dhahay gabadh waa dhimatay ee xagee geena waxaan ku dhahay meesha geenays geeyon ku dhahay haday dhan waa ku celinay hadal waa maqdu weeday markaas uu ugu dhahay waa soo baxnay markaan soo baxnay gabadh wuxuu dhigay nuur salaad meel u dhow fadhiyay gabadh meeshaas uu dhigay hore uu dhigay markuu hore dhigay gaariga gadaal buu soo qaaday gabadhu gaariga ku aadiyay oo si saar waa ka sii tagay taayirka gaariga maray oo madaxu kaga istaagay dhinaca madaxu ku aadistay taayirka madaxu kaga istaagay waana ka sii dhaqaajiyay gaariga ma nooleen markay dhimatay markaa uu soo ceejiyay gaariga gurigan gadaashiisa soo marnay wadadan dheer baan soo marnay gabadhii halkaan aan dhignay kortaana arkaysay baan dhignay gabadhii madaxeeda saas buu yiri soo ma aan soo sawirada dhow wala haya soo ma saas buu tiiray gabadhii wali xataa qaarkeed dambe halkaas uu jiray madaxeeda halkaas uu yiri gacanna halkaas soo marnay taayirkii baa madaxayga fuulay halkaas aan ka dhaqaaqnay wadadaan ma marnay labadiina waa labadayna wada socno may gabadha marka hore meed bay ahayd wax dhaqaaqa oo meesha maray oo dad ama baabuur qaarkii wax dhaqaaqa gaari baa aragnay gaariga aniga leerka waa noo dansanaa meesha mugdigaana waxa way gaariga doo leer dansan yahay cidna ma aragto waxay adiga baaray adiga 5 saac meelaha tahay 5 saac محمد هذا واحد نجوستي ماشي أنا قبلي ليش أنا نجوسته وماشي أنا أكو عشاني أكو عشاني ليش أكو عشاني أقول لها هل كان هو ماشي ميت كده أكو مرة إنك سانقرال أنا هاي أو دم بيجينا قررنا إنه gabadhii anagoo doro laba waa u tagnay gabadha waa u gacan dhaafnay
saas ay tahay gabadhii haddana waxaan ku sameynay inay iyadana baxrayso ama ayna xirto ama na dacweyso baan diidanay hase haddee gabadha waa ceejinay waxaan ku ceejinay camaamad labada dhinac baan ka qabanay haddaan ka qabanay gabadha way socday markuu hore markay socdo cabaar ka bacdi way soo kacday haddii soo kacday gabadhii waa soo baxnay cabaar annagoo joogno waan soo degnay aniga wiilkii waan tashanay waxaan ku yidhi walaalow gabadhii marxuumadan gabadhan hadhow hadday tagto ama magaalada tagto wayna dacweynaysa wayna xiraysaa maxaa talaa gabadha wax naf laguma jirto si loo aqoonsan gaariga taayirka aan lugta ku aadiye mari naga gabadhana aan ka tagno meesha inuu gabadha haddayba dhimatay saaxiib uga dhimatay allahu raxmatay inuu naga kaxay may gaariga taayir buu yidhi waayo gabadhii taayirkii annagoo indhaha noo dansan oo haddana gaari wax leer aan shidnin gabadhii taayirkii hora iyo tan dambe israacay allah naxariisto waxaa caawa ilaahay mahadii ah kiiskii baryahan baraha bulshada lala dhex wareegayay oo la marinayay oo ahaa gamanta yar oo maydkeeda laga helay duleedka magaalada Boosaaso ciidanka booliiska oo hogaaminayo taliyaha qaybta CID iyo saldhigyada iyo xafiiska xeerlaantu ay si wada jir u wada baarayeen in maanta uu soo gabagabay baaritaankii ilaahay kiis wixii macluumaad ah iyo kiiska conclusion kiisana aanu barisu wax ku wareejino maxkamadda darajada koowaad gobolka bari si ay go'aan uga soo saarto haddii ilaahay idmo waxaan marka hore mahad u celinayaa ilaahay ka soo koob ciidanka booliiska oo iska xil saaray inay naga gacan siiyaan xafiiska xeerlaantu markii hore gacanta ku hayay baaritaanka kiiska caawana si habeennimo iyo taliyaha qaybta hogaaminayo xeerlaantu ay la socoto lagu soo gabagabeeyay dhulkii gabadhaas waxyeelada loogu geystay la isxamal maayo kiiskii caawa berri wuxuu sugayaa maxkamad maanta jarsidii hore la dhageystay laakiin gabagabadu berri way haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan halkan uga faa'iidaysanaya bulshada ka codsanaya cid kastoo waxyeello u geysanayso bulshada inay booliiska gacan ka siiyaan haddii aan booliiska gacan la siin oo dhacdooyinka loo soo sheegin oo lala sheergelin oo lala wadaagin oo hadhow la yidhaaho wax la qaban maayo haddii eedeeda dadweynuhu bar baad leedihiin waxaa fiican in dadweynaha booliiska inay gacan siiyaan iyo hay'adaha amniga xeerlaaninta iyo maxkamadaha si xal cadaalad loo gaaro intaas waxaan ka codsanayaa waa dadweynaha aad iyo aad baa taliya u mahadsan tahay adiga ciidankaagu annaguna waxaanu ballan qaadaynaa xeerlaan ahaan waajibka nagaga aadan iyo kan iyo wixii kaloo la midaba inaanu ka gaarro haddii ilaahay idmo maxkamadduna insha allah ay ka gaarayso go-aan cadaalado kii ugu wanaagsanaayo waana mahadsantihi saxaafadda iyo dhammaan cid kasta oo fadhida waxaan ku salaamaya salaanta islaamka waxaan xilligan u qabanaynaa shirka jaraa'id inaan biliif yar ka siino bulshada Puntland ama bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka Bari dilkii foosha xumaa oo ku dhacay gabadhii marxuumadii Naciimo Cabdi Maxamed oo dhimatay ilaahay ha u naxariisto oo gacan ka xaq daran ay dishay gabadhaas oo ay dileen Maxamed Cabdi Faray iyo Cabdiraxmaan Maxamed Isaaq labadaa nin oo BLA ahaa oo gaariga ku qaaday oo magaalada kula wareegay meelo ka mida tegay kuna dilay qaxootiga meeshiisa qiraalle ay ku yihiin meydkeedana dhigay jidka soddonka iyo saldhigga Nuur Salaad meel u dhaxaysa halkaasna ay gaariga haddana dib ugu marsiiyeen qiraalle ay ku yihiin marka ilaahay mahadiis weeye caawa inay qiraal yihiin ee bulshadana u sheegayno cid kasta oo gacan ka geysatay bulshadii gacanta ka geysatay dhammaantood bulshaweynta gobolka Bari cid kasta oo gacan ka geysatay uga mahad celinaynaa CID-da iyo xeerlaalintana aan aad ugu mahad celinayo booliiskii ka shaqeeyay oo iyaguna soo qabanayay xogta raadinayay taliya saldhigyadii iyo cid kasta oo ku lug lahayd aan aad ugu mahad celinayo inay caawa arintaasu annaga ay naga jirto xeerlaalinta iyo maxkamadda jawaabtana aan ka sugayno maxkamadda jawaabtii ka bixin lahayd ilaahay baa soo muujiyay ilaahay baa iftiimiyey ilaahay baa soo bandhigay annagana dadaal baan samaynay
dadaal baan samaynay aan waqti kasta gelinay waa shaqadayadii shukri cala waajib bay nagu ahayd laakiin ilaahay baa mahad leh haddii qof xilliga intii la dilay cidla intii la dhigay laga tegay aanu xooga saaray bulshadii nala shaqaysay iyo booliiska qaybihiisuba ay gacanta kusoo dhigeen aad baan ugu mahad celinayaa waa abaalmarintii aan bixinaynay maantii dhaweyto halkaan hadda guulahay ka mid tahay insha allah waxaan rajaynaynaa inay dad badani dhiiran doonaan bulshadana boqolkiiba boqol baan u mahad celinayaa gobolka bari sida ay noola shaqeeyaan sida ilaamaha amniga ula shaqeeyaan sida xogta noo siiyaan aad baan ugu mahad celinayaa waxaan u malaynayaa bulsho isku xiran iyo bariis isku xiran haddii la helo waddanku nabad buu noqonayaa dadkuna isku soo dhawaanaya aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay xeeraaliyaha iyo tiimkii baarayaasha ahaana gaar baan ugu mahad celinayaa iyo taliyaha saldhigga bartamaha oo iyaguna si gaar ah baaritaan u mariyey waqti badanna ku bixiyey shaqadii aan u diray aad baan ugu mahad celinayaa boqolkiiba boqol ah waxaan leeyahay waa taasoo aynu kula dhigaano bulshadana u shaqayno bulshadana waxaan leeyahay hal isdejiyo waxaan ku maqanahay cadaalad iyo waxa weeye waqti kastaba inaan gelin doono qof kasta oo dambi gala inaan cadaaladda geyn doono maxkamaddana cadaalad baan ka sugaynaa iyo garsoorka iyaguna waa dhegaysteen waqti badan bay ku celceliyeen caawa go'aamadii gaar lahayn iyaga u taalla laakiin annagaa sugaynaa insha allahu go-aan khayr baanana ka sugaynaa joodigii iyo waqtiga aan ku bixinana in naga farxin doonaan baan u malaynaynaa horaan u sheego waxaan idhi caasha bay la mid tahay gabadha toon laakiin ilaahay wuxuu nagu gooleeyay waqti dhow inaan helo caasha waa lagu raagay waqti badan bay qaatay laakiin kuwaan ilaahay waa noo soo fudeeyey aad iyo aad baa umahadsantihiin dhammaantiin way salaam siina sheer garay barnaamijkan insha allah sidoo xaqiiqooyinka dhabta u gaaro bulshada Soomaaliyeed ee sida uga taxadiraan sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.